salaamu ullaahi calaykum. halkani waa dunida t v. qodobada aad ku daawan doontaan warkanana waxaa qayb ka ah madaxweynayaasha jubbaland iyo koonfur galbeed oo gaaray heshiis ka dhana filla soomaaliya. dowladda kenya oo xasuuq ka geysatay gobolka gedo iyo duqeymo ba'an oo ay ka fulisay gobolkaasi. baarlamaanka puntland oo ku dhaqaaqay waddo uu muddo kororsi ugu sameynayo xukuumadda siciid cabdulaahi deni iyo walaac cusub oo ka taagan deegaanada puntland. baarlamaanka soomaaliya oo qeybo ka mid a mushaarkiisa ugu deeqay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee dagaalka kula jira kooxda al-shabaab. qodobadaas iyo qodobo kaleetoo daadson ayaad ku daawan doontaan warka dunida t v u diyaar garooba. haddii ay tahay markii kugu horeysay aadna soo booqato fadlan ha moogaanaha sabskaraab saarato youtube-kan kala mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanida. madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafti garan iyo madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa lagu soo waramayaa inay heshiis ku gaareen in filla soomaaliya dhabarjabin lagu sameeyo islamarkaasna la hagaldaaciyo dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada. warar aynu helna ayaa sheegaya in labada maamulba aysan sameyn wax dhaqdhaqaaqa oo ay fuli diideen heshiisyadii ugu dambeeyay ay gaareen madasha wadatashiga qaranka ee la xiriiray xoreynta dalka. axmed madoobe oo dowladda soomaaliya u fara badan iyo dhaqaale uga qaatay inuu dagaalka bilaabi doono abaabulna sameyn doono ayaa gebi ahaanba arrintaasi sameyn. lafti gareen oo muddo hal sano ah ugu darsaday si uu u sameeyo howlgallo ka dhana al-shabaab ayaa isna la sheegay inuusan gebi ahaanba sameyn wax qorshaa. warar soo baxaya ayaa sheegaya in labadani mas-uul ay heshiis ku yihiin in dagaalka aan laga bilaabin deegaanada koonfur galbeed ilaa iyo inta ay qabsanayaan doorasho ay dib ugu soo laabanayaan. labadooduba waxay doonayaan in doorashooyinka ay maamushaan islamarkaasna ay ka hortagaan in dowladda soomaaliya ciidamo ay geyso deegaanadooda islamarkaasna ciidamadaasi ay hadhow doorashada saameyn ku yeeshaan. labada mas-uul waxaa la sheegay in dhowr goor ay si qarsoodiya u kulmeen islamarkaasna ay yeesheen wadahadallo dhinaca fogaan aragga iyagoo diiradda saaray sidii doorashooyinkooda ay u maareysan lahaayeen xilli filla soomaaliya ay ku wajahan tahay dagaalo ka dhana kooxaha argagixisada oo ay ka sameynayso deegaanada galmudug iyo hirshabeelle. dhammaan dowlad goboleedyada ayaa la filayay inay bilaabaan dhaqdhaqaaqyo ka dhana kooxda al-shabaab iyo howlgallo lagu xoreynayo deegaanada ay kaga sugan yihiin maamul goboleedyada, balse labadaasi mas-uul oo muddaxileedkoodu dhammaad ku dhow yahay ayaa go-aansaday inaysan sameyn wax dhaqdhaqaaq ah, iyadoo taas beddelkeedna filla soomaaliya lagu cadaadinayo inay dabadda ka joogto doorashada maamuladaas si ay mar kaleeto u samaystaan doorasho ay isku cimaamadaan. filla soomaaliya ayaa la sheegay inay ka warhayso in labadaasi maamul ay doonayaan fashilinta qorshaha dowladda, taasoo la xiriirta in ka hor sanadka soo socda si adag loo wiiqo awoodda kooxda islamarkaasna laga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin qeybo badan oo ka mid a dalka. dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo jubbaland waa kuwa ugu badan ee deegaano xoogan ay ka haystaan kooxdu, balse waxaa la sheegay in ilaa iyo haatan aysan maamuladaasi diyaar u ahayn inay fuliyaan qorshaha dowladda ee la xiriira xoreynta. wararka aynu helay ayaa xaqiijinaya in labada maamul goboleedba aysan sameyn wax dhaqdhaqaaqa, taasi beddelkeedana ay ku howlan yihiin siday u qabsan lahaayeen doorashooyin ay ku tilmaameen inay yihiin kuwo dastuuri ah oo iyagu ay maamulayaan. heshiiskii baydhabo lagu gaaray ee mucaaradka maamulka koonfur galbeed iyo lafti gareen ayaa u muuqda mid burburay, iyagoo shalay warbaahinta la hadlana waxay sheegeen in koonfur galbeed aysan ka dhici karin wax la xiriira xoreynta dalka, gaar ahaana kooxda al-shabaab ilaa iyo inta laga qabanayo doorashooyin, taasoo ay sheegeen inay sababteeda leedahay in lafti gareen uusan doonayn in dalka laga xoreeyo kooxda al-shabaab sida hadalka u dhigeen. walaac xoogan ayaa ka taagan sida labadani maamul ay doonayaan inay kusii qabtaan howlaha dowladda, gaar ahaan xoreynta dalka oo aysan doonayn gebi ahaanba inay ka dhaqan gasho deegaanadooda. madaxweynaha jubbaland ayaa si adag u diiday in ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka laga abaabulo gobolka gedo, kadibna weerar saf ballaarana lagu qaado degmada bu'aale oo caasimad rasmi u ah maamulka jubbaland. taasi beddelkeeda axmed madoobe waxauu doonayaa inuu sii xukumo kismaayo si uu halkaasi ugu qabsado doorasho isagoo mar kaleeto isku cimaamadayo.
filla Soomaaliya ayaa la sheegay in arrintan si dhow ay la socoto inkastoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu jiro furmaha dagaalka haddana waxaa la sheegay in xubnaha u qaabilsan filla Soomaaliya dhinaca la socodka dhaqdhaqaaqyada dowlad goboleedyada ay habeenna ka hor shir ka yeesheen waxyaabaha ka soconaya dowlad goboleedyadaas oo ay tilmaameen inaysan hayn shaqadii lagu ballamay. Dowladda Kenya waxa ay xasuuq xooggan ka wadaa gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya. wararka naga soo gaaraya gobolka Gedo ayaa ku waramaya in dowladda Kenya ay leysay dad rayid oo iskugu jira caruur iyo haween iyo dad kale oo aan hubaysnayn. duqeymo lala beegsaday deegaanka Ceel Cali ee gobolka Gedo ayaa gabi ahaanba lagu burburiyay goobo ganacsi, guryo dadweyne iyo sidoo kale meelihii danta guud, waxaana la sheegay in halkaasi uu ka dhashay khasaare ba'an oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. Mas'uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay in dad ku dhow 10 qofood ay dhinteen halka tiro intaasi ka badan ay dhaawacmeen, kuwaas oo ay ku jiraan dad rayid ah. diyaaradaha duqeymaha fuliya oo ay leedahay dowladda Kenya ayaa ku andacoonaya inay duqeeyeen goobo al-shabaab saldhig u ahayd oo ku yaala Ceel Cali, balse arrintaas ayaa la sheegay inay tahay waxba kama jiraan. waxaa sidoo kale la sheegay in halkaasi ay ka taagan tahay xaalad culus oo la xiriira dhinaca bini'aadantinimada kadib markii ciidamada dowladda Kenya ay duqeeyeen oo ay rusheeyeen goobo dad badan ay ku sugnaayeen. waxaa sidoo kale la sheegay in ciidamada dowladda Kenya aysan gabi ahaanba u meeldayin siday u xaqiijin lahaayeen ammaanka, balse ay doonayaan inay dadka shacabka xasuuqaan ayagoo ka dhigaya in dadkaasi ay yihiin kooxaha nabadda diidan ee al-shabaab. dowladda Kenya wax wararka ma soo saarin dadka rayidka ay ku dishay gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya, balse aqoonyahanada iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee ka soo jeeda gobolkaas ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqay inay qaado tillaabo degdeg ah oo ay wax uga qabanayso qorshaha murugsan ee gobolkaas. dowladda Kenya ayaa 10 sano ee ugu dambeysay duqeymaan kala joogsi lahayn gobolkaasi ka waday, waxaana inta badan waxyeello aad u liidata ay ka soo gaartaa dadka rayidka ah kuwaas oo ku dhibtooda dhibaatooyinka la xiriira dhinaca duqeymaha ay fulisay dowladda waddankaasi Kenya. si kastaba ha ahaatee dadka ku nool deegaanada duqeymo ay ka dhaceen ayaa bilaabay inay halkaas iskaga cararaan si ay u gaaraan deegaano nabdoon oo ay naftooda ku aaminaan. baarlamaanka Puntland ayaa lagu soo waramayaa inay u dhaqaaqeen wadadii muddo kororsiga, isla markaasna ay doonayaan inay Siciid Cabdullaahi Deni iyo xukuumaddiisa muddada u kordhiyaan iyadoo waqtiga doorashada uu ku egyahay sanadka cusub ee soo socda. ayaa haddana la sheegay inay si weyn iskugu dayayaan baarlamaanka Puntland inay abuuraan xasilooni darro sababi karta in dib loo dhigo doorashooyinka oo muddo kororsi loo sameeyo xukuumadda iyo baarlamaanka. mucaaradka xukuumadda Puntland ayaa sheegay in Siciid Cabdullaahi Deni iyo baarlamaankiisu isku diyaarinayaan muddo kororsi taasoo qalqalgali karta ammaanka iyo kala dambeynta guud ee Puntland. mucaaradku waxay sheegeen in baarlamaanka iyo guddoonkooda ay wadaan qorshe ay ku doonayaan muddo kororsiga, isla markaasna ay meesha uga saarayaan gabi ahaanba in doorashooyinka Puntland ay ku qabsoomaan waqtigooda. baarlamaanka Puntland gaar ahaan guddoomiyaha golaha wakiilada mudane Awaan Jibriil ayaa lagu eedeeyay inuu doonayo in muddo kororsigaasi uu dhaqan geliyo, isla markaasna baarlamaanka ay ka doodaan in doorashada aan lagu qaban karin waqtigeeda maadaama ay tahay qof iyo cod loona baahan yahay muddo dheeraad ah oo loogu diyaar garoobo. arrintan ayaa durbadiiba waxay abuurtay walaac xooggan oo la xiriira dhinaca amniga Puntland. mucaaradka ayaana sheegay inay dib u abaabuli doonaan ciidamadii horey uga dagaalamay gudaha magaaladaasi si ay yiraahdeen mar kale looga hortago in xukuumadda Puntland ay samaysato muddo kororsi sharci darro ah. baarlamaanka Soomaaliyana lacago ayuu ugu deeqay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalka kula jira kooxaha al-shabaab. baarlamaanka Soomaaliya oo kulan dooda maanta ka yeeshay arrimaha amniga ayaa la sheegay inay ugu deeqeen dhaqaale fara badan ciidamada dowladda. halkii xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka waxaa mushaarkiisa laga jarayaa lacag gaaraysa $200, waxaana lagu darayaa qorshaha la xiriira ciidamada dowladda dhiirigelintooda iyo taakuleyntooda. baarlamaanku waxay sheegeen inay qayb weyn ka qaadanayaan arrimaha la xiriira xoreynta dalka, isla markaasna ay bixinayaan lacagtan oo ah qaran oo la doonayo in dalka amnigiisa qayb looga qaato. warka ka daawanaysan Dunida TV waaga intaas sidaasin.